الله لك الحمد يا قدوس لا إله إلا الله لك الحمد يا قدوس. magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden waxaa lagu soo gabagabeeyay mu'tamar weyn oo ay yeesheen ahlus sunna wal jamaa. mu'tamarkan oo sanad kasta lagu qabto mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa sanadkan waxaa lagu qabtay magaaladan iyadoo ay ka soo qayb galeen qiyaastii 1000 qof. waxaana la soo jeediyay muxaadarooyin kala duwan oo ka hadlaya dhinaca nolosha iyo guud ahaan waxyaabaha loo baahan yahay in dadka muslimiintu ay ku dhaqmaan. mu'tamarkan sanadkan waxaa ka soo qayb galay culamaa'udiin aad u fara badan oo ka kala yimid dalalka Sweden, Britain, Denmark iyo Norway. waxaana culimadaasi ka mid ah Sheekh Muxyidiin Xasan Ayaanle, Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxyidiin Cali, Sheekh Muuse Cadde, Sheekh Axmed Fanax, Sheekh Muuse Xaaji Aadan, Sheekh Cusmaan Xaaji Aadan, Sheekh Cali Looboge iyo qaar kale oo fara badan. in dabadiya gudaha meeshii la joogaba xoog la saaro dadka dabada jooga iyo dadka gudaha jooga inaan Soomaaliya masiirkeeda aan faraha laga qaadinin. guryaha baa la isugu imaan doona hadii Ilaahay yiraahdo. qof la badbaadin doona ma jiro. ummad badbaadi doontaana ma jiro. ummaddu waxay gali doontaa halaag waligood aanay ka soo noqon bay gali doontaa. cadawgoodii baa marmarsiyo u heli doona oo waxa weeye dadka ku xeeran oo ayaga acdaadooda ahay waligood marmarsiyo u waayay maayaan. maxaa yeelay waa wadan halaag ka jiro, waa wadan ummado kale looga duulahayo, waa wadan dad waalan ay hogaaminayaan. sidaa baa soo baxaysa. ilaahay waxa uu la imaanayaa dad jecel oo na jecel yahay. maxaa laga wadaa marka yuhibbuhum si ilaahay nugu jeclaanaya. maxabbatullaahi an yuwaffiqaka lidaacatihi. maxabbatullaahi iyaak adoonka ilaahay inuu jeclaado waxa uu daliilay inuu daacadi laga helo. in dhikrigu ku fudud yahay calaamatu xubbillaahi xubbu dhikrillaahi wa calaamatu bughdillaahi bughdu dhikrillaahi. haddii dhikriga ilaahay aad jeceshood aragto oo lisaankaagu dhikriga jecel yahay ilaahay yaa ku jecel. haddowna aad aragtana adigu waa baxsan tahay markaas. muslimiinta waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan sidii ay u xaqiiji lahaayeen quwwatu nafaad wax lay. tusaale ahaan inay ka shaqeeyaan dawlad inay dhistaan, inay la dagaalamaan wax kasta oo dawladdaas wax walba ee dawladdaas muhaddid ku ah ee kala dhantaali kara in la dagaalamaan. waa inay ka shaqeeyaan asbaabta dawladdaas quwada u yeeli karta. maxaa yeelay maslaxadoodaa sidaas ah. gabagabada kulanka ayaa waxaa halkaasi lagu soo gudbiyey bayaan ka hadlaya guud ahaan baaq ay jeedinayaan culimada ahlus sunna wal jamaa ee mu'tamarkan 8aad ku qabtay magaalada Stockholm. waxaana bayaankaasi soo jeediyey Sheekh Axmed Fanax. waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dawladihii caawiyey ummadda Soomaaliyeed kuna soo dhaweeyay wadamadooda. waxaan mahad naq balaaran u jeedinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa ahla sunna wal jamaa iyo kuwa AMSOM doorkii sharafta lahaa ee ay ka soo qaateen kasaaridda wadanka ay ka saareen ururada argagixisada. bismillaah waxaan arkaa maanta mu'tamarkii meeshan ka dhacay mu'tamar aad u qurux badan. waxa isku yimaada dad aad u fara badan oo maaragtay caruur hooyooyin dad waaweyn inta ka kooban. waxa isku yimaado kale mataqaana culimooyin aad fara badan waxyaabo badan laga faa'iideystay haddii ahleed diini haddii ahleed maaragtay tarbiyo wax kasto. waxay la tahay mu'tamarka aad ugu qurux badan uu yahay sanadkan maaragtay. waan ku faraxsanaynaa maanta inshallah waa maaragtay meeshan waqtigay ku qaatay wax badan diini nafsadeeda ka faa'iideystay. mu'tamarka waxaan arkaa wax wanaagsan maadaama aan joogno wadan qurbe ah oo u baahan diinta in loo sii faahfaahiyo. xaruntan weyn ayaa sanadkan waxaa lagu qabtay mu'tamarkan aadka u ballaaran oo ilaa 1000 qof ay ka soo qayb galeen. waxaana loo arkaa kulamadani inay yihiin kuwa xoojinaya ku dhaqanka diinta islaamka iyo guud ahaan sidii loo xoojin lahaa dhaqanka in badan oo ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee qaaradan Yurub ku nool xilligan. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, Universal TV, Stockholm.